Saamaynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee TikTok ayaa heerka maanta ay joogtay heesta gaarsiisay. Nimco Habe, hooyo Soomaaliyeed oo fanka habigeedu ahaa 4 sano ka horna ku heestay heesa ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. Waa 4 luqadood oo kala ah Sawaaxili, Carabi, English iyo Soomaali. Haddaba saamaynta ay dunida ku yeelatay maanta waa mid aan la tilmaami karin ilaa ay iyada u noqoto riyo ay rumaysan weyday oo maanta ay tahay mid manager haysata dunidana ka heesi doonta iyadoo marbadal u gooshi doonta heerkaana waxa gaarsiiyey dhalinyarada Soomaaliyeed. DJ Jamzi ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سومالي وين يلبى دنيا كجوكتان الله وين وحنا كود الرجينية عافيمات يا عبادة الصوبانية عمل خير متكسر مراد لنا باهي مرادك سمت خير ورقة وحنا وصلنا وعافيمات تامس يمكن جريودي جلد وتقول هو يجيله كل جريودنا سامي لما نكسر كودا شايستا باهي لشاو بركة يكون السجاينا البدن وبركة سناس لما هران ذلك يعني نبض يبلش سومالي وانا بدنا الله هو وديسنا يتنيرو وجوكتي يعلو بركة ويفرست intina dib inaga soo beesteen wax gacmaha idin barakayn subscribe siira fiidiyogan maanta ka hadlay waxa weeyeen Nimco Habe wamido Nimco Habe inaad ka ogtiin inaydan ka ogeyn waan idin sheegayo. Nimco Habe waa fanaana Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed, fankeedana waxa weeye waxay bilowday muddo dhowr sano ka hor waxaana ku bilowday Nairobi. Dabaato heesta saamaynta yeelatay dunida maanta haysata waxa ku heestay 4 sano ka hor. haddaba daraadan lahayn waa dareen ku joogay Nimco Habe way iskaga timi dhanka iyo Nairobi waxayna soo aaday dalkeedii lama horana waa cawska jiiraalo qof walba dalkaas dareenka uu ku haystay iyo ku dibadda ku haystaa waa kala duwan yihiin. haddaba Nimco Habe Hargeysa way tagtay muddo ayay joogtay, Muqdishona sidaas la mid ah way tagtay oo muddo ayay joogtay, haatan la tilmaami karo halka ay joogtana waxaan ku hayaa inay joogto Cabudwa. haddaba maadaama ay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwo social media kolka ay noqoto waliba dhankiisa TikTok saamayn ku leh waxay bumbuunis iyo ma garanaysaa tilmaam gaar ah siiyeen heestii Nimco Habe. taasuna waxay fududaysay dadka dunida jooga oo idile inay maanta dhawaqeeda dhageystaan. heer waxay gaadhay goobaha xafladeed ay isugu yimaadaan Westernka iyo reer galbeedku ama ay shiiha ahaatee in laga shito laga daarto. dadka caanka ah oo heesta gabadha tilmaansanayana tiriya cadadku lagu koobi karo ma aha. gabar model oo la yiraahdo Bella Hadid oo Instagram ku haysta 46 milyan xataa waxa ahayd mid ka heshay heestaas oo aad ula dhacday Instagram keedana soo ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. kuma eka Bella Hadid Carabi iyo Cajabi way wada tilmaansatay. iska daa in dadku iyadoo muusiga ay dhageystaan xataa dadka qaarkood ajaanibtu waxa ahaayeen kuwo ku dhawaaqayo ku heesaya heesti iyagoo waliba calankii Soomaali lagu yiqiin soo qaadanaya. ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. wajheedada xashakeeda ogsoonow inaan ku jecelahay, ana love you more than my life, ana axibak ya xabiibi, nakubeen baa miimisana. goobaha caweysiga iyo ciyaaraha sidaas la mid ah waa laga dhageysanaya. hal goob oo kaliya ma aha, waa goobo kala duwan oo dunida daafihiisa ku yaal iyo dalal kala dheer oo aad u kala fog. wargeysyada caalamku waa kuwa wada ishaaranaya oo gabadha heesteeda iyo xulashada bulshada qiimeynaya. The Guardian waa lagu soo qaatay, CNN iyo BBC-na waa kuwa sugaya waraysigeeda. haddaba waxa weeye arrinka lama horaanka ah oo bulshada Soomaaliyeed fariin ahaan ay ku farxayaan in idin la wadaago. gabadha qisadeedana wax yaraan tilmaamo. midoo gabadha tan Soomaaliyeed ee fanaanada ah hataa sida aanu ognahay markhaati ka nahay fanaaniinta Soomaaliyeed kulligood yaana qaarkood badan waa kuwa isximiya oo isciila xaasin isku ah. haddaba gabadha tan Soomaaliyeed ee fanaanada ah kuwa la ciila ayaa ka mid tahay muddada tan dambe waxa fankeeda loo waayay fariintaas way tahay. waasan kale waa hooyo dhasheeda dhinaca ku haysiyo lama horaanna way tahay in dhashaada
aad waqti la qaadato. haddaba nasiibku waa cajiiba, gabadhaasoo dhasheedii iyo dhallaankeedii la joogta fankana sidii hore aanu ahayn ayaa fariin soo gaartay oo lagu yiri London baa lagaa sugaya, dunida waad qabsatay. way qaadan weyday oo lama filaan bay ku noqotay. kolkaasaa la tusay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo ku wada heesaya magaceeda iyo heesteeda iyo suuradeedii oo meel kasta taa. waxaa la tusay Chinese nooc walba ahaadaan iyo Japan iyo American iyo African ba inay yihiin kuwa ku heesaya heesteedii. jaraa'idada caalamkuna ay yihiin kuwa sugayay sida waqti ula qaadan lahaayeen ama ay wareys ula yeelan lahaayeen. haddaba taas waxay fududeysay durbadiiba bulsho Soomaaliyeed inay la xiriiraan iyadii. dabeetana ay yiraahdaan waxaanu doonaynaa si kastoo aanu garab kuu siin karno inaanu garab kuu siin oo aanu heestaada heer aad ku gaadhay ma garanaysaa idee dunida aad ka muujiso. gabadhii manager baa loo sameeyey, ilaahay kuma darnaadee UK buuna joogaa. bulsho Soomaaliyeed baana waxa weeye arrinkaa hogaaminaysa. waana dee mid ma garanaysaa rajadeeda iyo riyadeedu waxa weeye sidii ay filanayso si ka duwan ay tahay oo dee festivaalada caalamka ugu waaweyn laga casuumayo oo heesteedana laga dhageysanayo. sidaan wada ogsoonahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed wax walba ay buunbuunisaa heer bay dunida ka gaadhay. ninka la yiraahdo Barbar heestiisii heerka waxa gaarsiiyey oo dad shisheeye ah inay ma garanaysaa ay xataa soo duubaan oo Faransiis iyo cadaan bale waxa ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo hees reaction-kii iyo falcelintii ay sameynayeen ay saamaan gaar u yeesho. waxa weeye gabadha Nimco Habi waxay ka turjumaysaa qofka si kasta oo loo xaqiro oo xumo loola doono oo loo ciilo oo waxa weeye niyad jab loola doono marna qofku waxa uu la maagan yahay inaysan suurtoobeen qofku waxa Ilaahay u qoray oo qura uu helay. gabadha waxaan hayaa xog ah in la ciilay oo la culaadiyey oo la xaqiray oo la dulmiyey. maantana heerkay maanta joogto dee waxa weeye waad aragtaa waa star way dhaaftay. haddaba kuwii shalay ximinaya xumaanta la doonayay kuma aysan fikirinay gabar Soomaaliyeed tahay. sidaan ogsoonahay fanka ragga iyo dumarka kolka ay noqoto ragga laga yaabay xaqiraad iyo xumaan xataa haddii ay la kulmaan inay ka kabtaan, hase ahaatee dumarku dumi badan iyo tacadiyo ku arkaan. abwaana kuwa sheeganaya oo waxaa jira gabdhaha yiraahda haddaa rabto inaan hees kuu sameeyo ahoo mid ogolaada. gabadhii jirkeedii wuxuu ku bedelanayaa hees. ka hadduu Ilaahay ka badbaadiyo oo abwaanku uu noqdo mid xishoonaya kii muusiga sameynayay ayaa laga yaabaa gabadhii inuu ku yiraahdo muusikada tan waqti bay qaadanaysaa, haddii aad rabto inaan si fudud kuugu sameeyo dhaqsaa ahoo mid wax ii ogolaada. maaha qarash waxa uu rabaayo waxa weeye inuu waxa weeye wax macsi iyo xumaan uu la sameeyo ama jirkeedu doonayo. kameramaanada ruuxooda waxaa jira kuwo gabdhaha xujooyinka ku xiro. haddaba gabdhuhu faallooyinka iyo xumaanta ay arkayaan badanaa waa kuwo ma garanaysaa idee ka tago oo yiraahda wabalaayo ku aragtay iga tago cidna aanan u sheegin, ama kuwo tacadiga ogolaada. waxay kaga faa'iideystaan waxa ay u sameynayaan. haddaba gabadhan waa hooyo sharaf iyo karaamo leh. xumaantada qaar haddii Ilaahay ka badbaadiyey xaasidnimo la kulantay, xaqiraad bay la kulantay. hase ahaatee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah kuwo mar walba Soomaalinimo isugu hiliyo garab isu siiya ayaa gaashaan u noqday. dunida maanta aynu arkaynana heesteedii caan ka dhigay. ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi nakupenda mimi sana waa ujeedada caashaqayga. tan waa fariin ka turjumaysa dadka Soomaaliyeed sida ay isu garab siiyaan isu garab taagan yihiin. tan waa fariin ka turjumaysa dhaqankeena iyo luqadeena. tan waa fariin ka turjumaysa calankeena iyo astaanteena. gabadhaas maanta heerka ay joogto waxa gaarsiiyey bulsho Soomaaliyeed kolka laga yimaado codkooda halaasiga. bumbuuniska rag iyo dumar dhalinyaro Soomaaliyeed baa ay bumbuuninayaan oo tilmaamayaan maanta maxay u soo heediyeen calankii in lagu shakaalo heestii. dad badan oo deegaankeena halka ay ku naalaan aqoon inay bartaan, dad badan inay dib u soo doonaan oo u dhageystaan heesaha Soomaalida iyo suugaantooda iyo dhaqankooda. haddaba ogow oo marka aad walaasha iyo walaalka wax la doonto adigana wanaag iyo horumar bay ku tahay, marka aad ciil la doontana adigana caqdad iyo colaad bay ku tahay. dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jira badidood waa kuwo garab isu siiya oo bartay xaaladda iyo colaadda iyo nafsiga iyo qabiilku inaysan ahayn wax faa'iido ah. waana kuwo u badan xumaani marka ay dhacdo inay ka wada dhiidhiyaan, wanaag markuu u yimaadana garab ay isu siiyaan. waa kuwo u badan kooda dhibaataysan inay gaashaanka qabtaan oo garab ay siiyaan.
kooda ma garanaysaa ee dibidaabyada wada dulnimada darsha iyo dhallaanka la maagana runta ha u sheegaa. haddaba kuwa xaqiiriinana way jiraan oo xaasida, kuwaas hase ahaatee mar walba waxaa ka guulaysta kuwa dadnimada iyo damiir kale ee dunta Soomaaliyeed ku badan tahay. gabadha Soomaaliyeed guusha ay gaadhay waa midaan wada gaarnay, horumarka ay gaadhayna waa midaan wada gaarnay. buunbuuniska ku sii wada, mar dhowna waxaad arkaysaan iyadoo Australia iyo Canada iyo Mareykanka iyo India iyo China looga yeelayo oo fanaaniin caalami oo Beyonce ugu horeyso la heesiisa. taasuna waa guulaysan keligeed gaarine aanu la wada gaarnay. waxaan halkan ka bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ma garanaysaa ee arrinka si dareen iyo dadnimo iyo damiir leh u muujiyay oo kaliya ku taageerayay inay tahay wax Soomaaliyeed, fan Soomaaliyeed iyo fariin Soomaaliyeed. marka waxa weeye waxaanu sugnaa waa nimco habi oo dunida haysata sida ay maanta u muuqato. barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayno gacalow warsan iyo war khayr. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.